بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت واحد فرحات إني تيجي ورد قال هذا المسوق عليه سراكيل وأوين هو يا أرجيه قال عيدان بري كان صوب حاجة عن تعرف سراكيل شاس أوتيرو بدنا هذا واحد نشوفه صدق سأنت تذكر إذا كنت سوى حوي إسماعيل محمد عثمان مع الشغله وأنا كده حصليه وهاجا عشان الله سلام من الرا عيدان ماذا كسر شقيه markii ugu dambeysana ah tariyaha dugsiga madafiic ilaahiisa markii ay qaraamay maxamed cali kaashana dhexe aniga shaqada cad oo hamada xawgelinta gaaska labaad operation officer second division hargeysa markii ay qaraamay kaashana xuseen xasan oo qoriye ah ciidanka cirka ahana madaxa xawgelinta aniga xamar markii ay qaraamay halkan waxa kala farantan waa garanaysan ragga asaasaya sanan ciidamada warada oo soo galay waa musanadi aniga dutaa xiran iyo Ahmed Jabaan oo ragga dagaalada soo saareen markii hore ahaa sida imikana saraakiisha waaweyn ee dagaalada inta waxay dheer waxaan u fidinayaa afiil ama baaq saraakiisha kale Soomaaliyeed ee ku hadhay gacanta cadawga saraakiisha waxaan leeyahay waxaan ka xumahay in rag badan oo aan garanayo aqoon iyo garashada ku ogaa ay maanta wax ka wadaan dagaalka dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay saraakiisha Soomaaliyeed waxaan leeyahay rag badan oo ku ogaa aqoon military iyo hogaaminba sida u dhici kartaa inay aqoon military iyo tuwa ay arag iyo tuwa dan laga badiyaa ee wali waxaan la yaabanahay ka qayb qaadanaya iyagu oo ogahay inaan jeclay أنا أقول إني كفني فاخر عايم من الصومال حتى أنا وريك طيب قادنا عليه قربك يا حاضر من دكاسي يا بدر وحوي بس راكيش اسمه تسوي قاضي وأيوه قاسم تاعي وزير لماذا حسين محرم يظهر يعني لماذا مصلح يوم من أحد من الحسن راكيش الصومالية موجودة سنتها مية كذا وكان دوني أنا نلعب خلص كسياب بره كعايضة بدن أيو أسر وكفلنا بحيدون يعني إني يقولي وموستان بحيدون يعني إني أمضى كلمة تكن حاقان وضدقا لكن سؤال وحنو شيء وحنو دقلا من أنا يطاي وكان سؤال بمانتي ولقى حريات خلص كفشيس إن لهلو مامو داد كولا قيب كلا أو قرصور حق أرك وإسموك هايم إن آمو وضو حرينو كأبكو يجوغا ككسما يجوغا يكثير أجوغا سؤال باي مالس وضع ما حاق ولد وقيولي مغدر كانوا كريا حوية أود أيام إنتا كسما واحد إمان إنتا دوا إن الدقال كان رسو قشا وأظن أن هذا أيام من سأل ذلك قول الأوجرسي هذا جواب حضرتك المصنف وعرجي أساسي أوركان تراكيش وزور رئيسي أدروني ده الكار يا تراكيش كرون نور أنت كده يا صلاح بسم الله الرحمن الرحيم وإلهي مهدي ما ناتي سراكيشي حسبك أساسي سراكيشي كريمتيا كشقين سلا يسكي مازين دا درادي وحالكا كموقنيسا إن هالكنكي أي كجرتي أمة الصوماليين أي جهاد كحق آها إن قبقبي هاي أيها كموقتالكاس أمة الصوماليين وحنو شيغينا إن أي سحاقة وغصو قيب قلان تمان هالكنكي جهاد كاللي وجهه خاصة سراكيش الصومالية هي عظمة الصومالية هي عدو استعمال أيوه تحرس كسياد برو استعمال أيوه وكحاق أيوه أمة الصومالية هي شعب الصوماليات با عظمة الصومالية دو حنو شيء هل كنو كوليسنا يا نو والله بدي بحساب توعد متاسد آمنتين وسؤال ويان وحنو شيء عظمة الصوماليات ميل كستبها جوغاني جهاد كيغو جوغسن مايو لما انتي وان رود منانا
intaan waqtigu ka dhicin ku soo biira jihaadka xaqa ee ku jirto SNM meel kasta ha joogtee dibadiyo gudahaba hadalkaygii waxaan uga baxayaa saraakiisha gudaha ka dagaalamaysay ee sida xaqa uga dagaalamaysay maantana ku soo biirtay xaggii xabadda ay ka soo dhacaysay ee SNM ay ku soo ridisay cadowga oo gudihii iyagoo ka soo baxay maantana xaggii dusha ku soo biiray cadowgana si dhab ah ugu ridaya xabadda taafta iyo taqorigaba ah بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدنيا. أنا جوا يا شاء الله سر إسماعيل محمد عثمان وكتب سام طبنكي سركال إسراكيش السريعة كوسو بري حلقك حقها أنا ما يوضو لا يجا حرين أيوه فاشيستيكا سياد برا أمة الصومالية لا يجا حرين أيوه وهم جعلها هنا warbixin yar idinka siiyo dhibaatooyinkii iyo wixii ka dhacay intii aanu ku sugnayn waddanka Soomaaliyeed xabsiga intaanu ku jiray iyo intii ka horeysayba sidii muxuu ahaa aynu la wada soconay dagaalku markuu ka qarxay gobollada waqooyi waxaad wada ogsoon tihiin dhammaan dadkii u dhashay gobollada waqooyi ha ahaadaan saraakiil askar iyo shicibba wixii galay gacanta muxuu ahaa maxamed siyaad barre in ay noqdeen wax la laayay kamid ah saraakiishii xabsiyada gashay xabsiga Hargeysa ayaan galay waxaa halkaas muxuu ahaa ku jiray lagu gumaaday saraakiishii iyo askartii ka tirsanayd ciidanka ee ka u dhalatay gobollada waqooyi wixii yaraa soo haray waxa loo gudbiyay jeelka xamar waxaan ka mid noqday raggii galay jeelka gaarka u ah maxamed siyaad barre ee uu ku gumaado ummadda Soomaaliyeed jeelkaas oo ah jeelka hangashta intii halka aanu ku jiray dhibaatooyin badan baana soo maray oo waxba halkan laga sheegi karin ma aha jeel lamida jeelka adduunka waa jeel maskaxda dadka laga dooriyo dadka lagu dilo lagu jirdilo lagu baabiyo maxamed siyaad barre lama sii daayeen ee markii uu adkaysan kari waayay qaylada caalamka cadaadinta kaga imanaysa muxuu ahaa hay-adaha adduunka ayaa muxuu ahaa ay ku kaliftay inuu la sii daayay sidaa daraaddeed maalin casara oo taariikhdu ay tahay 19 Noofambar 1988 ayuu casar sidii wax waalankii oo ordaya jeelkii noogu soo galay halkaas ayuu dabadeedna nagu soo fayliyay wax kale sidaa nagu eegay ayaa wuxuu yidhi waxaan idinku imid inaan idin sii daayo ma jirto maxkamad la isbariyey ma jirto wax la isweydiiyey wax sharci la yidhaayo waddanka ka dhisanina ma jiro sida annagu aanu ahayn ayaa meelaha kaloo dhammina ahay markii aanu soo baxnay oo aanu xabsiga ka soo baxnay ilaahayna naga soo daayey waxaanu tala ku gaadhnay in aanu muxuu ahaa naftayada ku biimayno si aanu u marro meelaha halisa oo aanu ugu biirro halganka gobonnimo doonka ee lagaga xoraynayo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo hoogga iyo jabka ugu geystay maxamed siyaad barre aynu ognahay inuu yahay maatilays umulado shicib baabiye waxaasoo dhan yahay aynu ognahay haddaba hadalkaygii anigoo intaa ku soo gaabinaya aan halkana idinka magacaabo saraakiisha Soomaaliyeed ee ku soo biirtay ciidanka SNM annagoo horeba uga tirsanaan jiray haddana maanta nasiib wanaag waxa ah inaanu joogno goob ka mida goobaha ay xoreeyeen saraakiishaasi oo dhammaan saraakiil sare ah magacyadooda halkan aan idinka tiriyo